حلنا قدومي وانكوها مبليين مركا ugu horeysa marka ku xigtana waan kuugu duceynaynaa in xilkan iyo mas'uuliyadan culus ee aad qaaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku fududeeyo dhalinyarada reer Bandiirale waxaan leeyahay uguna baaqaya kulana dardarmaya midnimo iyo isku duubni iyo iswaraashi hambalyo soo dhawow xilka Allah kula galab garo ka wasaaradda ahaan beeraha waxaan rajaynaynaa inaan beeraha wada fari doono insha Allah khiyaaray waxaan soo dhaweynaynaa khaasatan aad iyo aadna uga hambalyeynaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Bandiirale mudane Cabdiraxmaan Macalin Maxamed soo dhawow maalena falyatafadal mashkuura gudoomiye soo dhawow ma rabno gudoomiye ururka dhalinyarada intii la soo magacaabo meel iska fariista waxaa la rabaa degmadan inaad u shaqo tagtid isbedelkaaga in lagu arko gudoomiye waxaan ku leenahay hambalyo mar labaad mar koowaad mar saddexaad ma noqon doono qof ka shaqeeya qabyaalad iyo isxirix deegaanka dhexdiisa waxaan noqon doonaa nabadoon bulshada u dhaxeeya halkan galabta waa taageeris iyo maartay soo dhaweyn gudoomiyaha dhalinyarada ururka Bandiirale lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha ururka dhalinyarada oo garabkayga taagan inuu soo istaagay maanta caleema saar ballan qaaday inuu degmada Bandiirale hore u sii wadi doono waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow waa mahadsan tahay dhalinyaradu waa awoodda ugu horeysa ee dal waliba uu leeyahay deegaan waliba uu leeyahay degmo kastana ay leedahay waxaan rabnaa awoodii dhalinyarada maanta maadaama gudoomiyihii la caleema saarayo horeyna ay gudoomiyaal kala duwan xilalkan u soo qabteen in ugu horeyn gudoomiyaashii hore ee xilalka soo qabtay meesha ay soo gaarsiiyeen aan uga hambalyeeyno gudoomiyaha cusubna maanta aan ku soo dhaweyno shaqadan culus iyo mas'uuliyadan culus ee loo igmaday waxaan rabaa sidoo kale fursadan inaan uga faa'iideysto una mahad celiyo baahda horumarinta degmada ee waayahan shaqo culus degmada ka waday waxaan rajaynaynaa ayagana inaan ugu mahad celino gudoomiyaha ururka horumarinta ama baahda horumarinta oo nagala joogo Cali Dhuux waxaan leenahay shaqadaas ayagana in Ilaahay u fududeeyo dhammaan aan u istaagno inaan kala shaqeyno hadii Allah awood u raali ka noqdo hambalyo soo dhawow xilka Allah kula galab garo ka wasaaradda ahaan beeraha waxaan rajaynaynaa inaan beeraha wada fari doono insha Allah Bandiirale ay dhul beereed laga baranayo mudug dhul beereedka ku soo batay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan beeraha naga shaqeyn doontid oo dadka qayb naga noqon doonto in dadka wax beertaan oo lagu dhiirigeliyo dadka beeraha inay wax la soo baxdaan dalkooda qaralaasi halka waxa uga mahad celinaynaa Sheekh Cabdirashiid oo runtii deegaanka dhaqdhaqaaq ka dhiga dhul beereed oo maalixdaas wasiirka wasaaradda beeraha geynay uu la yaabo mudug maana ka maleynayna inay beero noocan ku yaalaan munaasabada caleema saarka ururka dhalinyarada degmada Bandiirale dhalinyarada Soomaaliyeed hadaan u nimaadno boqolleyda waxay ka yihiin boqolkiiba 70 ayaga maanta u baahan in la mideeyo muruqooda iyo maskaxdooda maadaama ay yihiin mustaqbalka bari iyo odayaashan dadkii bedeli lahaa khaasatan dhalinyarada reer Bandiirale waxaan leeyahay uguna baaqaya kulana dardarmaya midnimo iyo isku duubni iyo iswaraashi khiyaaray waxaan soo dhaweynaynaa khaasatan aad iyo aadna uga hambalyeynaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Bandiirale mudane Cabdiraxmaan Macalin Maxamed soo dhawow maalena falyatafadal mashkuura gudoomiye soo dhawow xafladan aad iyo aad u qiimo badan waxaan uga faa'iideysanayaa soo dhaweyn iyo hambalyo ka bacdi waxaan leeyahay khiyaaray wadaan ku joognaa wado baaba'aan dhex taaganahay waxaan dhex joognaa degmo aan ka seexanay nin kasta oo la magacaabo oo dhalinyaro ama ha noqdo ama waayeel ha noqdo horsocod baan ka rabnaa ma rabno maanta ka bacdi qofkii la magacaabo inuu meel iska jiifsado ma rabno inuu degmada uu magac baan haystaa uu ku dhex joogo waxaan rabnaa qof walba hawsha uu ku quman yahay inuu u istaago waxna ka qabtaan doonaynaa insha Allah taala haddii intaas samayn waayo intaydaas caleema saaratay
iyo intayada degmada iska leh oo ilaahay uu ku ijaadiyey dhammaanteen aan maryaha ka fiiqno niraana raalli naga aho mar dambe annaga guddoomiyiinu ahaanbaysid guddoomiye soo dhowow waxaa kugu soo dhoweynaynaa degmada aad u jeedid oo aad arkaysid inay wax ka dhiman yihiin wax ka dhiman ku kab waxaan galabta joognaa caleemasaarkii guddoomiyaha dhallinyarada Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Macalin waxaan leenahay hambalyo 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 Dr. hambalyo hambalyo guddoomiye waxaan rabnaa guddoomiye maanta waa caleemasaarkaagii waxaan rabnaa isbedel muuqda isbedel dhab ah in isbedelkaagu muuqdo ma rabno guddoomiye ururka dhallinyarada intii la soo magacaabo meel iska fariista waxaa la rabaa degmadan inaad u shaqo tagtid isbedelkaaga in lagu arko guddoomiye waxaan ku leenahay hambalyo 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 mar labaad mar koowaad mar saddexaad maanta inaan isbedel helno aad baan u rajaynaynaa oo ururka dhallinyarada oo degmadeenna ka muuqda degmadeenna insha allahu tacaala waa loo kacay hadday maamul tahay hadday guddiga hadda tahay macnaha guddiga haddeertaan ee degmada u kacay oo ah inay wax ka qabtaan soolarada waxaan rabnaa waa u wada dhannahay haddaan maamul nahay haddaan nahay guddigaas iyo haddaan nahay haweenka ururka bandiraley waxaan rabnaa waxqabad muuqda meel kasta hadday tahay degmadeenna aad bay u xoogaa yaantaan gaabisay isbedelkeenna markaan insha allah sanadadan soo soconnaa 2026 waxaan rabnaa degmada baalkii caasimad inay noqoto bandiraley insha allahu tacaala ahaado daacad iyo dhexdhexaad u dhaxeeya dhalinyarada bandiiradley ma noqon doono qof ka shaqeeya qabyaalad iyo isreexreex deegaankan dhexdiisa ah waxaan noqon doonaa nabadoon bulshada u dhaxeeya bulshadan waxay soo martay ragaadiyo badan ani maanta waxaan rabaa waxaan ku haminayay oo maskaxdeeda ku jirtay dhalinyaro la soo magacaabo ilaahay hadduu idmo waxaan rabaa in dhalinyaradu ay ku kala baxdo maanta kadib waana ballan qaadayaa bulshada halkan fadhida hortooda raba inaan ka ballan qaado dhalinyarada bandiiradley inay qof iyo cod ay ku kala baxdo baa idin ballan qaadaya ballanqaadka maanta aan fidinaya waxa ay tahay maanta kadib in sanduuq lagu kala baxo oo dhalinyaro sidii aniga la ii soo magacaabo kale aan qof dambe loo soo magacaabin aniga iga dambeeya taasaan ballan qaadaya sidoo kale waxaan ballan qaadayaa xafiiskii dhalinyarada ku shaqayn lahaa inaan dhiso xafiis cusub oo qalabaysan aniga maalinta aan ka tagaayo inaan isku dhijiyo ma raba kursiga qofkii la doorto baan rabaa si cadaalad inaan ugu wareejiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo horumarada deegaankan ka jira deegaankan waa deegaan taariikh aad iyo aad u dheer leh waxaan maanta idin ballan qaadayaa inaan noqdo nabadoon dhexda u xirta dhalinyarada bandiile saa iskugu keeni lahaa waana mahadsantiin baan leeyahay halkan galabta waa taageeris iyo maaragtay soo dhoweyn guddoomiyaha dhallinyarada ururka bandirada lagu soo dhoweynayo waxaa marka kolley waxay la tahay waa hawl baa kuu taalla guddoomiye soo dhowow shaqo badan baa kuu taalla horumar badan baa kuu yaalla dhaqaajin badan baa kuu taalla annaguna waana kula shaqaynanaa haddaan u nahay baalkii degmada maamulka degmada haddaan nahay hadday xaafad noqon lahayd hadday maaragtay degmada maamulka degmada ugu sarreeya ay noqon lahayd waana kula shaqaynaynaa ku soo dhowow guddoomiyaha ururka dhallinyarada oo garabka iga taagan inuu soo istaagay maanta caleemasaar ballana qaaday inuu degmada bandiradley hore usii wadi doono waxaan leenahay guddoomiye soo dhowow waa mahadsan tahay waxaan leeyahay marka guddoomiye soo dhowow waxaa ku soo dhowaataa qofka banow aadniga waxaa la xilka markuu qaadayo saddex qodob baa laga rabaa saddex qodob baa laga rabaa qofka marka koobaad waa inuu wax kasaa waa inuu wax kasaa qofka xilka qaadaya marka koobaad waa inuu wax kasaa labaad waa inuu karaa saddexaadna waa inuu cadaalad yahay waxaa la rabaa markaa la isku tiirsanaado dhammaantiinna waxaan leenahay soo dhowaada
gudoomiye soo dhaw hambaliyaan ku leenahay hogaanka u qabo hadii la kuriyo dhalinyarada hogaanka u qabo bandiradley hogaanka u qabo deegaamada ka soo horjeeda bandiradley 35 barood weey ina baratal raba kulligoodna ay kugu soo xirmaan ilaa waayo ayagaba gudoomiyaha ururka dhalinyarada u taayay uma ahayd bandiradley kaliya kulligood baa ku ah waxaan leenahay ku soo dhawow sida aan u tixgeli sida inoogu xiran kugu xirnaadeen dadku waa dadkaagii qabxunu kuma jiro fadhigankeeda waxa ku soo haray waa lagu caay doonaa waxaan lagu aadan qaadan bay kooran doontaan wuu qaatay wax aadan samayn bay oran doontaa waa sameeyay dulqaad baa laga rabaa inaad hesho tira waa mahadsantihiin ajarka aan ka helno baa kamid ah waxaas ay qaateen iyo waxaas inta ajarka aan ka helnay kamid yihiin sababta waxa weeye adiga marka ajarkaaga la iskama ruuxo ma qaadan iyo ma yeelin midna laba ordo waa mahadsantihiin baa leeyahay qofka markuu waxbaad qaat waa mahadsantihiin kaliya intaas baan leenahay